safiirka u fadhiya jamhuuriyadda Soomaaliland dalkani Kenya Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir ayaa shacbiga iyo dawladda Kenya uga tacsiyadeeyay geerida 65 ruux oo ku dhintay falalkii argagixisanimo ee kala dambeeyay ee ka dhacay gobolada waqooyi bari ee dalkani Kenya gaar ahaan magaalada Mandera. Safiir Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir ayaa dawladda Kenya u xaqiijiyay in dhammaanba jamhuuriyadda Soomaaliland madax iyo shacib ay aad uga xun yihiin falalka argagixisanimo ee ka dhacay dalkani Kenya ugana tacsiyadeynayaan ehelkii qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkaasi iyo guud ahaanba shacbiga reer Kenya. Safiir Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir oo warbixintan mid la mid ah ku qoray jariirada Daily Nation ee ka soo baxda dalkani Kenya ayaa ku faahfaahiyay xidhiidhka qotada dheer leh ee u dhaxeeya dalka Kenya iyo jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo ah mid lama ilaawaana dhib iyo dheefbana ay la qaybsanayaan dalkani Kenya iyagoo aad uga xun falalkaasi argagixisanimo ay fulinayaan argagixisada mandaqada Geeska Afrika. qaranka iyo home cable imaatinka halka ay ugu timaadeen si aan idin la qaybsado warbixin aan sii daayay oo ka sii daayay waxyaabaha dhacdooyinka imika ka dhacaya dalkan Kenya aan wakiilka ka ahay baaqan soo saaray oo ku saabsan dilkii iyo argagixisadii ka dhacday magaalada Mandera ee dadka masaakiinta ee shacabka lagu laayay ayada iyo taa iyo meelo kale imika ka dambeeyay si xun loogu laayay dawladda Soomaaliland ay ka xun tahay raalina aan ka ahayn una aragto wax khatar ficilada noocaasi inay yihiin wax khatar ku ah ayada iyo mandaqada gabigeeda. dawladda Soomaaliland waxay leedahay farsamooyin ay kula dagaalanto argagixisada waxa koow ka ah nabadda ilaalinteeda. argagixisada waxay ka dhacdaa meelaha marka dhibaato meel ka dhacdo bay ku soo dhuntaan marka mar walba waxaan dadka dawladda Soomaaliland iyo dadkeeduba waxay dareensan yihiin inay lagama maarmaan tahay in nabadda la xoojiyo wax allaale waxay nabadda xudhimayaan ay yihiin wax suuragal ka dhigaya ficilada argagixisada. baaqo waxaan kaloo wuxuu hambaarsanaa oo weheliyay soo jeedin ah in la helo istaraatiijiyad guud oo mandaqada gebigeeda dalalkan aynu jaarkanay gaar ahaan kuwa ay meelaha deegaanada ay ku nool yihiin dadka Soomaalida ama Ethiopia ha noqoto ama Kenya ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto ama Somaliland ha noqoto ama Djibouti ha noqoto meelaha ay ku nool yihiin meelaha ay xarunta waa imanka argagixisada ee adduunku focuska saaray ama diiradda saaray waa giddigood waa dhulka Soomaalida ku nool yihiin. marka maadaama dalalkaas giddigood ka mid yihiin dalalka aynu jaarka nahay ama IGAD lagu magacaabo inay lagama maarmaan tahay in la helo istaraatiijiyo cusub oo lagula dagaalamo argagixisada. waxa kale baaqo xambaarsana oo kamid ah la dagaalanka argagixisada istaraatiijiyadooda xoojiska xiriirka dalka Soomaaliland iyo Kenya waxay isweydaarsadeen laba xafiis. wuxuu baaqo leeyahay labada xafiis hal la xoojiyo si iskaashigu aroogu sii socdo la iskana kaashado nabadda iyo la dagaalanka argagixisada. waxaanu ugu dambeyntii Safiir Maxamuud Cabdullaahi Jaamac hambalyo iyo bogaadin u diray guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ku hambalyeynaya dhawaan khilaafkii golaha baarlamaanka sida ay u soo afjareen ilaahayna uu la garab qabtay. soo jecelahay in halka ka hambaleeyo guurtidii khilaafkii ama murankii dhex ka dhacay golaha wakiilada qaabkay u galeen iyo sida ay u soo afjareen oo tilmaamaya dhaqan iyo waay aragnimo iyo xikmad guurtida inoo hayso waa ku hambalyeynay labada dhinac ee ogolaadayna iyagana waa ku hambalyeynaya. Laaya Cabdi Cali TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Nairobi.